bismi illaahi raxmaan iraxiim. kusoo dhawaada mar kale iyo youtube channelka Baraa Aqoonta. runtii waxaan aada iyo aada uga cudur daaranayaa inagoo in muddo kala maqnayn. waxaan halkan markaa idinku soo gudbin doonaa haddii alla ka dhigo casharkii saddexaad ee casharadii taxana ahaa ee aynu ugu talagalnay programka QuickBook Desktop ama QuickBook Professional Desktop. khaasatan inagoo hore u sheegnay inaan ku xallin doono programka haddii ilaahay ka dhigo qeybta loo yaqaano serviceka, oo aynu tusaale usoo qaadanay inaynu marka ugu horeysa ku xallin doono construction company ama shirkad dhisme inagoo laba casharo hore kasoo diyaarinay. xaqiiqatan waxaad ka heli doontaa labada cashare hore youtube channelka Baraa Aqoonta. adiga markaa ku qoraya halkaa browserka ku qoraya Baraa Aqoonta youtube channel adaa ku qoraya labadii cashare hore waxaad kasoo daawan doontaa haddii ilaahay ka dhigo. halkaas kasoo daawan doontaa cafan aan ku noqdo waxaad qoraysaa waa kaa markaa Baraa Aqoonta kaa ku dhufo. labada cashare hore waxa ku saabsanaa casharka koowaad wuxuu ahaa sida programka loogu duubo computerka. casharka labaadna waxaanu kusoo dhignay sida companyga serviceka ku shaqeynaya aynu magaciisa noo bixinay Damal Construction, sida markaa aada u abuuri karto. markaa ugu horeyn casharkeeni koowaad waa kaa halkaas aad saa uga soo daawan doonta haddii la dhahdo. casharkii koowaad waa sida loogu duubo programka QuickBook saasaad markaa kaa usoo daawan doonta insha allahu tacaala. markaaynu casharkeena gudagalno, casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay maadaamaynu labada cashare hore ka diyaarinay, wuxuu ku saabsanaan doonaa guryaha ay shirkadu dhisi doonto, sida markaa kharashkii geli lahaa loo abuuri lahaa. markaa kharashka gelaya laba qaybood waynu ka dhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. qeybta koowaad waxa weye kharashka alaabta guriga gelaysa iyo kharashka gacanta guriga gelaysa. markaa ugu horeyn waxaynu abuuri doonaa kharashka alaabta guriga gelaysa. markaa inoo soo kaci shirkadeena wataa laba goor saa u kala garee inagoo xaqiiqatan markaa aynu laba cashar qeybtan u qaybin doono ama laba qaybood aynu ka dhigi doono. qeybta koowaad aynu bilowno. inta badan macalimiinta afka soomaaliga wax ku dhigaa inta badan waxay xooga saaraan qeybta loo yaqaano inventoryga. inagu markaa bal qofku ardaygu siduu aqoon guud uga helo waxaynu isku dayna inu qeybta serviceka la dhaha ku xalino, inagoo sidaynu hore u sheegnay aynu ku dabaqi doono haddii alla ka dhigo, oo ama aynu ku xalin doono shirkadaha ku shaqeeya serviceka sida jaamacadaha, iskuulada iyo wixii lamida. markaa intiinay la socotay halkaa haddaynu geliyo passwordkii waxaweye damal waxaynu u bixinay damal 123 baynu u bixinay. waxaynu ugu talagalay markaa sida casharadu ay u noqdaan qaar taxanaa in markaa aynu lesson aynu isugu xigsiino haddii alla ka dhigo, sida ardaygu markaa si taxanaa ugu heli karo. markaa waxaan fadlan kugula talinaya laba cashare hore inaad soo daawato, inkastay iska basic ahaayeen labadii bilowga ahaa. inoo soo kaco iyar baynu suginaa saa usoo kaco habadan yaro culus iyo xogaa. halkaa say ka muuqata waxa weye shirkadii Damal Construction baa halka ka muuqata. Damal Construction ayaynu soo abuurnay. markaa Damal Construction xaqiiqatan markaa waxba maynaa soo gelin. reportkeeda haddaynu soo eegno
waxay noo muuqanaysaa inay tahay 00 computerka gudan yar culus yahay shirkadda markaa waxaynu kambanigii guud ahaantii un baynu soo abuurnay wax kaloo aynu ku dhex sameynay ma jiro casharkan saddexaad baynu ku ayaynu hawshii qaybihii ugu muhiimsanaa geli doonaa haddii la idhaahdo markaa iska xidho tan iska xidho hamdan yar culus yahay iska xid waxaa le markaa reportkaasaan saa utegayaa reportkiidaas shirkadaynu eegeynaa kana iska xidh reportkaasaynu tegnaa reportka markaynu tegno waxaynu ku dhufanaa halkay ku qorantahay company and financial lasoo raac markaa balance sheetkaasaynu eegeynaa balance sheetka shirkadda balance sheetkeeda sisaad arkeyso saad arki doonto haddii la idhahdo waa 00 wax shaqo oo aynu qabanay ma jirto markaa waa kaa shirkadda markaa saasay noogu aasaasan tahay toos baynu markaa shaqadu bilaabeynaa sidaan hore sheegay casharkan waxaynu ku dhigi doonaa markaa labada kharash aynu nihi gurigaas ay shirkadu dhisayso markaa calaa guri kharashka gelaya laba qaybood baynu uqaybin doonaa qayb waxaynu ubixinay qeybta gacanta kharashka gacanta midna waxaynu ubixinay kharashka alaabta gelaysa markaa waxaynu abuureynaa markaa alaabtii baynu abuureynaa marka waxaynu ka abuureynaa alaabta halka ay ku qoran tahay list baad tegeysaa waxaad ka dooranaysaa item list kaasaynu ka dooranaa item listka markaynu saa uga doorano kuwan waa kuwii markaa templateska iskaga jiray ee loogu talagalay ay shirkadu kusoo sameysay markaa inagu qaar af soomaaliya ayaynu ka dhigan doonaa hadii la dhahdo marka laba midba waynu sameyn karnaa inaynu kuwa edit karayno aynu wax kaba bedelo iyo inaynu qaar cusub abuurno markaa ugu horreyn markaa labada waa intusi doonaa labada noocba kanoo kalen doonaya inaan wax ka bedelo waxaan leeyahay kaasoo kale ayaan doonaya wax ka bedelo waxaan leeyahay right click baan ku dhufanayaa ama laba goor baan gujinaya right click markaan idhahdo waxaan ku dhufanaya halkay ku qoran tahay edit halkay ku qoran tahay edit item baad saa ugu dhufanaysaa edit item markaad tirahdo qaybtana kuusoo baxaysa halkaa magacu inoogu qorayay markaa alaabtii guriga gelaysay ayaynu ku qorinaa haddii ilaahay ka dhigo markaa aynu iska bilowno waxaynu ugu horreysiinaynaa markaa qaybta rinjiyada ayaynu ugu horreysiinaynaa waxaan leenahay ku horee rinjiga markaa laba qaybood baynu ka dhigi doonaa waxaan leenahay ka yaryar ee galaaniska iyo tiniska waxaan leenahay markaa rinji galaan halkaa markaa ood masaxaysaa labada qaybood ka saaraysa meesha halkaa description waxaan doonaya inuu ka muuqdo shaygii aan meesha ku qoray marka waxaan leeyahay waan soo koobiyeysanaya halkaasaan halkan kusoo shubanayaa descriptionka waa descriptionkaasi hadhow muhiim buu noqonayaa inaad ka aragto qaybta descriptionka ayaa muhiima marka waxaan leenahay halka coskoo kale shaygaa qiimihiisa dad garanaysa waad ku qori kartaa haddii kalena waad iska dhaafiyo hadhow marka aynu soo iibsano baynu qiimihiisa qorina marka uma baahnin pricekaan uma baahnin halka ay ku qoran tahay express account waxaynu ka dhiganaa markaa halkaa waxaynu ka dhiganaa halkaa ay ku qoran tahay subcontractor waxaynu ka dhiganaa marka haddii la idhahdo kharashkii alaabta ayaynu halkaa ku qorina marka waxaad leedahay kharashka alaabta ayaad ka dhigaysaa marka kharashka alaabta marka kharashka alaabta waxa laga yaaba inuu marka hore kugu cusub yahay marka waxaa leedahay kharashka alaabta is not good in the account list kuma jiro waxaad leedahay set up imika ku dar baad leedahay imika ku dar marka kharashka alaabtii isagiiba toos kugu soo qoray waa express buu leeyahay waa sax marka waxaan leeyahay safe and close baan ku dhufanay halka mar dambe inaan weydiinin ayaa suuragal ah oo inama weydiinay mar dambe waxaan leeyahay markaa safe and close kana waxaan leeyahay markaa safe and close baan ku dhufanaya kana waxaan ku dhufanayaa okay daasaan ku dhufanaya marka rinjiga waxaynu abuurnay galaanka rinjiga hadhow tirada ay noqonayso markaynu soo iibsano ayay inoo noqon doontaa haddii la idhahdo marka waxaa leeyahay tan ii soo baxdayna waxaan ku dhufanaya yes baan ku dhufanaysaa marka madbedeshay buu ku leeyahay yes baan leeyahay halkan grammar iyo waxba uma baahnin waxaynu tegaynaa halkay ku qoran tahay option waanu iska saaraysaa mar dambe inoo weydiin halkaasaan ka qaadanaa saxa waxaan leeyahay markaa okay basiinanaa kadibna keli bismillah mar dambe inama weydiinay markaa shaygaa saasaan markaa rinjigaa saasuu inoogu safe garay waxaan leenahay markaa
mid kale aynu tegaynaa shay kale inoo soo qabo kan oo kale tusaale ahaan ayadiyadana saa u edit garaynaynaa waxaan leenahay saan idin soo sheegay edit isagana sidoo kale marka qeybta marku saasoo kale kugu soo baxo halkaa this service is used in assemblies or performed by subcontractor ayaad waxaad saaraysa saxiib aad saaraysa si faahfaahsan kugu soo saaro halkaa waxaa leedahay markaa isagana waxaan leenahay waxaan leenahay rinji teens baa leedahay oo rinjida teenska adhow inoo geli doona isagana intana inoo soo intaana inoo soo koobiyey marka ka qeybta labaad imika aynu sameynayna waxa weye qeybtii laba qaybood aniga nidhi waynu samayn kartaa mar kiibaad edit garaynaysaa marna tanaad toos ugu dul dhufanaysaa marka imika waynu ku dul dhufanay halkaa waxaynu ka doornaa marka kharashka alaabtaynu ka doornay halkaa income account ku qorantay construction company-ga construction income kaasaynu ku diinana iyada marka waxaad leedahay tana yes baad leedahay tana saasuu kugu soo qabtay marka saasaad wadaysaa haddii ala ka dhigo aynu weliba ku darno saddex kalena aynu ku darno kaasoo kale iyadana inoo edit garee editnka ka degdeg badan tan oo kale iyadana saadhe waxaad leedahay marka tan oo kale waxaan leenahay waa tusaale ahaan ciid baynu ka dhigaynaa ciid waa nist ama niis oo kale aad ka dhigaysaa niis waa nisti gelisay guriga nisti guri gelisay markaa nisti guri gelisay timekana aan ku xisaabtamayaa timekana aan ku xisaabtaminaa nistii markaa guriga gelaysay halkaa waxaan nidhi waxaan ka dhiganaa kharashka kharashkaad ka dhigaysa ha ilaabin waxaan leenahay markaa okay safe markaa safe ama okay ku dhufanaysaa mid kalena inoogu soo dar waxaan leenahay edit gare iyadana inoo edit gare halkaana inoo saar kaa waxaan ku dhufanaa markaa sibid baan leenahay kaa sibid marka runtii waad saaontani guriga wixii gelaya oo dhan waa inu qofku marka hore lease ama book kusoo diyaarsadaa kolley waa iska wada familiar waxa guriga gelaya waan iska wada naqaanaa guriga waa inu wixii gelaya markaa kharash xagga gacanta mooyaan xagga kale gacanta iyadana waanu abuuri doonaa hadii la dhahdo waa inu qofku kusoo diyaarsadaa lease markaa book kusoo diyaarsadaa oo book ag yaalla bookka kolba mid ka geliyaa marka inagu saddexdaas ayaynu qeybta ku jirjiraynaa halkaas aynu kasii wada doonaa hadii la dhahdo casharka ku xiga la soco wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu